koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kastiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warii warama ragga muxuu sheega maanta warna siyaagoley wartiya gurtihan fuurkun u fuursanaatana waa niyo kalamaan waxaaba noqotay 4.5 cilmiga ilaahay fara badan ah gurdhuudiibaba reer binu haashin ayayba muddaanti ka yeelan war ilaahay ha u naxariisto ilmihii xaaji gaabow iyo kuwaga la socday balaayo aan la aqoon oo cidi dhul meelay ka timid ayaa ku tumatay mayd bay wadeenoo waxay maraayeen siinka dheer meelagtiisa maydkiina mayd kalaa lagu beddela 8 bay dhimashadu maraysaa oo 5 ka mid ay yihiin ilma xaaji gaabow waa ganacsadaha caanka xaaji gaabow haddaba taqaaniine madiina sarta dheer ku leh hadda xaaji gaabow siyaasad kuma jirin cid wax ku sheeganaysana maana arkin hadda sababta carruurtiisii ehelkiisa lagu maagay anagu garan mayno warniyawad waalantee kuwaas mayaga cidnaba u joojiya xarash qarsoon baa loo hayade ilaahay ha u naxariisto kolleyba waa ha noolaan walaal xaaji gaabowen aad sheegaysiin as'aal miyuu ka mid ahaa mayasanan buu ahaa wadaa mid dheer mid gaabanbo wax la cafiyaay madaanba war kanaafkiisu ma boondan u cunayniyo warwaraysan ogdiin male madawiinagi wii koofiga giirka iyoonay haani yaryaraayeen geeka shirkii baarlamaanka fureen may ereena baarlamaanow shagageega kow ata dadwiinaga soomaaliyeedan shagayeena eren laakiin intii shagadaas una faraha kala jirna wal mooshin laraw ayla sheegnay kiyan wasinkii talada iskala dhiido walaa iskaa hagaaganga mooshin sheenow gordaasana mooshinkaas noo reeba iyo eren madii hilkaniing mayaada kuraaska safaylanka fadheeno dika unka erna mooshin sheenasankii reed hanas noo reeba waari kuraas iyo ka halaalsadooda ka aali ana adeer mooshinka ayay biil ka dhigtaan dhaxagsee u dhaafaan ud waalantee waraadhe odagaaga kiikiigle baarlamaan maahane golaha shacabka dheh warkaa sheegaysa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi ayaa samboor ka qaado wuxuu yidhi kulmiyaa samboor igu riday baarlamaanka soomaaliya shiraya kuulaha war golaha shacabka dheh baarlamaanka waa labada goloo laisku daray yuusan adigana warkaaga samboor ka qaadina shibis ka dheh labadan adeer gole ma Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku darayba warheeda adinka waaba ka dhacsantihiin basilina dhan ee baarlamaanka waxa la yiri mooshinka ugu tirada badnaatay dawladda carta ayaa hor yaala haddada say wax idinkii 30 waa gaaraha hal 30 war xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya inuu baarlamaanka ku jiro waa ogahay sheeginiyo hoy meehana uu warmaysiin kuwa oo marooyashan oo maalin kasta oo dadka daraayo oo meehan baabuurta weyn ka wataan kii ugu weyna oo amisom waa warama maanta waxaas oo la hadlay kuwa oo waramaayeen waxaas dhahay bilaayada oo Soomaaliya ka jirta 10 sano ee joognay waa isbaraheenas dhahay lacib saqiira heedas dhahay baadi waa isbarnas dhahay hadda meehi joogan imeehi joognay iyo wixii dhan waa la babarooyay hadda la bilaabayas dhahay unuki uyka tii ka dhacdo waa la yaabaa jira qixi hore been dalo oo al roora markaan waxaas dhahay uyka shabaab dambe ma la arkaysda ma soo naqahay markaan si u gamno waa baxayaan le baabuliyaalo hadii bilaay koowa badaleenka bixina bad waryaadaheen warba mantika haya qarankii dhammaayay Soomaaliland si ay wax ka noqdeen iyo halkay ka boojoobeen waaban garan u lahay ilaa alaankan nimankii la oran jiray saaruqoon ee xabsiga aan liinta ka cabaanan u dirnay maantu baaban aragnayba iyagoo magaalada dhexdeeda sabaynaya oo sariibadii iyo maskaradii iyo meelihii oo dhan waxaan ku ka adeeganayay supermarketyadii waaweynaa galaya markaan niriyaa idin soo daayayna waxay dhahan annaga idinka adeer waxba idinkama gelin horteeda noo banneeya waryaa war adeer markaan nimankii maliintii xabsiga taallay baa ka dhammaatay war saadiquunka sheegay maaqaan waxaan ka hadlay waa shabaab jasiiradda laami leeyahay ee Kenya ku taal 9 qof ayay shabaab qoorta uga jareen war aduguba basaas baatee maxay qoorta kaaga jari waayeen waraa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka Kenya cid qoorta ka jarta ma lahan asigoo meydahana la arkin ilaa haddana waa la garlaaya xal ayuuna banaan bax ka qayb galay oo Uhuru Kenyatta madaxweyne waayad oo dalka Kenya oo dhinac fadhiyo waliba war adeer waxa uu taraxo baalkii kun laacibaan malaynaayeen war gantaal garsoodi ay inoo ka dhii suurtagal ma aha may beerta nabadda waa la bedelaa la yiri bilaashna waa laga dhigay waxaas la yaabanahay muqdisho ku burburto lama kala xigo meel aan la kala xigin ceelgaabtii hore inay ku noqonaysaa iska cad war adeer istaankeygii hore basaska iyo baabuurta weyn ka bixi jireen bay noqonaysaa ceelgaabtuniyo tii hore koolada waraaba jartiya wada kolka haqaace yaman biil abadan waa laga waaysan wixii yadiiska oo la helo oo jidgaanka lagu soo qaado hafkiisa jaadka lagu beedaa dhaay oo iska aan adiga xataa ma aad meesha lagu konfacee biil ana ka jirto war aydiidka ciyaaraha ka jira masaajidka galay adigu maxaa meesha idin dhigay
war cunugaas rool ka dhacay xageena salaamaniyo balaayo jeega xiiran idinka meesha suuq keena ordan oo kala tago warar ba wariya wal maga sheego qorto wariya jeego sisiile wariya jeego sisiile wariya hir go